weeraro ku bilowday qaraxyo isla markaana dhaliyay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho dhaawac ayaa kooxda al-shabaab waxa ay ku qaaday deegaanka lagu magacaabo Nuur Dugle ee gobolka Shabeellada Dhexe. wararka ka imaanaya Nuur Dugle ayaa waxa ay sheegayaan in haatan uu ka soconayo dagaal foolka-fool ah oo u dhaxeeya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dagaalyahanno ka tirsan kooxda al-shabaab kadib markii dagaal ku bilowday qaraxyo ay kooxda saakay waa barigii xilligii salaada subax ay ku qaaday deegaankani Nuur Dugle lagu magacaabo ee hoostaga gobolka Shabeellada Dhexe, waxaana ilaa iyo hadda si rasmi ah loo xaqiijin karin tirada dhimashada iyo dhaawaca iyo khasaaraha dhabta ee ka dhashay dagaalkani maadaama isgaarsiinta qaarkood ay hawada ka maqan tahay gudaha Nuur Dugle isla markaana kooxda al-shabaab ee isgaarsiinta ay jireen sida xogaha ay tilmaamayaan, waxaana wararka qaar ay tilmaamayaan inuu jiro khasaare baaxad leh oo soo kala gaaray labada dhinac iyadoo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegeen inay iska caabin xoogan ay kala hortageen kooxda al-shabaab halka kooxdana bayaano kala duwan oo ay ku baahisay warbaahinta ku hadasha afkeeda iyo sidoo kale mareegyada ay ku leeyihiin baraha bulshada ay ku sheegeen in jab xoogan ay gaarsiiyeen ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan aagga Nuur Dugle isla markaana khasaare dhimasho dhaawac leh ay gaarsiiyeen ciidamada dowladda kooxda al-shabaab sida ay tilmaameen, halka saraakiisha ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya hogaaminaysa ee ku sugan nawaaxiga Nuur Dugle ay inoo xaqiijiyeen inuu jiro khasaare baaxad leh oo ay gaarsiiyeen kooxda al-shabaab dhankoodana khasaare kooban uu soo gaaray sida ay tilmaameen saraakiisha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya.